بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan oo wacan meel kasta adduunka joogtaan dhageystayaasha qiimaha iyo qaayaha la kusoo dhawaada barnaamijka codka Naasir Cadceed. Waa barnaamij aan ugu talagalay in aan idinku soo gudbiyo dareenka aan markaas dareemayo. Waa barnaamij cod ah oo ka duwan yahay barnaamijyadeedii kale ee muuqaalka ahaa. Muuqaalka sidaad ogtihiin waa farsamo kale iyo qaab kale, laakiin marka aad cod ahaan wax kusoo tabinaysid way ka yara duwan tahay. Xaaladda aad ku sugan tahay ma ahan xaalad aad camero iyo light iyo studio aad ku sugan tahay, laakiin waa xaalad maaragtay aad kaligaa tahay isla markaana aad cabiraysid dareenkaada. Barnaamijka maanta waxaan uga hadli doonaa busaaradda ama shiidka ama marka aadan waxba haysanin. dabcan waa xaalad aad iyo aad u adag. qofka bini'aadankana mar walba wuxuu jecel yahay in uu haysto wax uu markaa baahidiisa ku buuxiyo, laakiinse adduunka saas ma ahan. mararka qaarkood, xilliyada qaarkood waxaa ku soo maraya xilli aadan haysanin waxbo, aadan haysanin $1, aadan haysanin $1. xaaladuna aad iyo aad iyo aad u cakiranta. dabcan qofka bini'aadanka ah wuxuu u baahan yahay markaasi يعني wax gacan qabta, wax waxtara. waxaan rabaa inaan ka hadlo dhibaatada ay leedahay shaxaadka ama qof kale inaad wax weydiisatid. runtii ma sahlana. bilowga hore qofka hadduusan horey waxba qof u weydiisanin waxay kaga adkaanaysaa in buur culus madax oga dhacdo. laakiin mararka qaarkood baahi jirta dartood ma adkeysan kartid. wax walba waxaad u hilmaamaysaa si aad baahidaas u buuxisid, waxaadna ku qasbanaanaysaa inaad qof kale u tagtid oo baahidaada u sheegtid. dabcan qofka aad wax ku tuhmaysid dadku way kala duwan yihiin. qaar waxaa jira shuruud la-aan, walaaltinimo, qalbi wanaagsanaan ee wax kuu siinaya kuna wanaajinaya ayagoo faraxsan waxay ku siiyeen raalli ka ah ayaad ka soo tagaysaa. dadka qaar kugu jeesjeesayaan, waxaa laga yaabaa inay ku bahdilaan, waxaa laga yaabaa inay ku meermeeriyaan, waxaa laga yaabaa ceebtaada iyo baahidaada inay dad kale u sheegaan. waa arrin aad iyo aad u jirta, dhibaatadeedana u leh. marka qofka muxuu ku fiican yahay inuu mar walba ka maarmo baahida dadka. bashar baa leeyahay, waa laisu baahan yahay, shaki kuma jira taas. laakiin isku day inta aad awoodid inaadan qof bini'aadan u baahanin, walow hooyada ha ahaato, aabaha ha ahaado, walaalka ha ahaado. macnaha aan saas u leeyahay waxay tahay walaalayaal, qofku wuxuu ma aragtaa dadku ay jecel yihiin, dadkuna u baahan yihiin, lana amaanaa marka uu asaga wax bixiyo, marka uu dadka u baahanin. tusaale kale, qof aad saaxiiba tihiin ayaa waxaad oga baahatay gaarigiisi. maanta gaari baad u baahan tahay inaad howl kusoo qabsatid, oo ninka hebel baad gaari ku tuhmaysaa, ama kuma tuhmaysid waad ogtahay buu haystaa. waad u tagta waxa ku tiri waniyow ama gabar yahay, gaarigaan u baahanahay. markaasaa kun cudurdaar lagu keenaya. gaariga wallaahi taayir baa ka hadlaysan, saliiddi lagama bedelin, waa iska yara ciladaysan yahay. hadda gaariga isaga u wataa, maxay tahay marka farqiga u dhexeeya inuu adiga ku siiyo oo dantaada ku qabsatid? macnaheedu waa qof aan markaa waxba ku ogolan. nabiga calayhi salaatu wasalaam qaacida ayuuna siiyey, wuxuuna noo sheegay haddii aad rabtid dadka inay ku jeclaadaan, ka fogow waxa dadka macnaha u baahanin. waa cajiib, dadku waxay ku jecel yihiin markaa wax haysatid. soomaalidan waxay tiraahdaa nin wax haysta ayaa wax loogu daraa. macnaha haddaad maanta ladan tahay, cid walba lacag bay ku siinaysaa, way ku gacan qabanayaan, madaxda way ku soo dhaweynaysaa. laakiin markaadan waxba haysanin cid ku rabta ma jirto. arrintaasi waxay igu kalifaysaa in aan ka hadlo qofka inuu mar walba isku filnaado inuu shaqaysto. dad badan oo waxaa jira maanta ilaahay caafimaad siiyey, xoog siiyey, caqli siiyey, laakiin aanan shaqaysanin. waxay rabaan inay wax shaxaadaan. kuwaasi waxaan leeyahay walaalayaal, fadhiga ka kaca oo maaragtay dadkan aad wax ku tuhmaysaan ayakaba shalay sidaad maanta tihiin bay ahaayeen, way ka gudbeen. qofka marka uu wax shaqaysto
ayuu wax qabsan karaa. waxaan kaloo rabaa inaan tilmaamo shaqada ceeb ma laha. dadka qaar waxay ku leeyihin maxaan ka shaqaysanaa. war haddaadan shilin haysanin shaqo kasta xalaal bay ku tahay. xooggaada inaad maalatid oo aad muruqaada aad maalatid oo aad gacantaada dhididkaada aad cuntid ayaa ka fiican qof kale inaad hoos tagtid. wadankeena waad ogtihiin iska burbursan yahay. shaqooyin maaragtay maanta lagu kalsoonaan karo ama laisku hadlayn karo ma jiraan. haddana saasay tahay qofka markuu rabo inuu shaqaysto shaqo ma waayo. wuu soo saaran karaa maanta nolol maalmeedkiisa. marka dhalinyarada waxaan kula talinayaa, dadkao dhan waxaan kula talinayaa inay fadhiga ka kacaan, inay shaqaystaan. maxaa yeelay qofka markuu shaqaysto marka koowaad naftiisa waxbuu tarayaa, raalli noqda. marka kalena dadka kale ayuu wax tarayaa. marka waxaa loo baahan yahay in aad mar walba adiga aada isqabatid. taasi waxay igu soo riday ama aan jeclay inaan tilmaamo inaad meel wax dhigatid. dadka qaarkood markay wax helaan markii way gubaan. may saas maahan. waxaa loo baahan yahay maanta markay 100 ku soo gasho inta aad baahidaada uga isticmaasho maana inta kale inaad meel dhigatid. waxaad kaloo iska ilaalisaa waxaadan awoodin inaad iibsatid. waxaa la yaab leh, waxaad arkaysaa gabar dhalinyaro ah, danyar ah, waxba haysanin, shaqo haysanin, laga yaabaa dad kale inay ku tiirsan tahay. waxay rabtaa aroos inay aado. arooskaasi waxay gelinaysaa $200. diraca deyn bay kusoo qaadanaysaa, kabiya deyn bay kusoo qaadanaysaa, macnaheeda dad kale iska dhisaysaa. nin waxaad arkaysaa shilin aan haysanin, eber ah, oo maaragtay jaakadu wato wuxuu kusoo qaatay deyn, kabaha uu wato nin buu kasoo qaatay. waxaa laga yaabaa inuu maaragtay $300 ka bixiyo suud ka bixi. markuu suudkaasoo iibsado shaati wuxuu ku iibsado ma haysto, wuxuu ku casheeyo ma haysto. marka haddana waa inuu caawa u labistaa siduu wax usoo shaxaadi lahaa. waxaasoo kale waa ceeb weeye. qofna ha iska dhisin, naftaada aamin, waxa aad haysatid ku qanacsanow. ha ku bixinin kharash iyo lacag waxa aan dan kugu jirin. haddaad awoodid oo aad adigu waxa haysatid sax, laakiin xogaa soo kulama qumana in aad haddaadan haysanin aad yara gaabsatid. haddaad maanta arooskaas ka baaqatid ama aad tegin, dee cid ku dhahaysa maxaad u imaan weyso, u tegi weyso, ku qabsanaysa ma jirto. haddii qofkii ku qabsadana dabcan waa qof aad ku yaqaano saaxiib ku lahaa. dee qofkaas waxaad leedahay dee iga bixi bal diraci wax kee margarta. qofka markaas aga carari doono, wax dambana ku weydiisan doonin. akhyaarta waa inaan meel wax dhiganaa, waa inaan mustaqbal ku xisaabtanaa. adduunkani qof ku dhashay taajirnimo ma jirto. dadku waxay wada dhasheen ayagoo qaawan, aan waxba haysanin. qof walba wuu dadaalay, ilaahay baa la garab galay, waxbuu qabsaday. dabcan madaxda maanta, dadka ladan, ganacsatadayaasha, ogow nin walba wuxuu soo maray marxaladaa soo martay. marka waxaad wax uga bixi kartaa oo keli ah in aad wax baratid, in aad shaqaysatid, in aad isku kalsoonaatid, in aad dadka ka maarantid. haddaad intaa samaysid waxaan hubaa in aad wax badan nolosha ka gaari doontid. haddaba ilaahay kuuma qorin inaad shiid noqotid. ilaahay kuuma qorin inaad maaragtay lacag la-aan noqotid. kuuma abuurin. ilaahay wuxuu ku abuuray inaad wax qabsatid. ilaahay wuxuu ku abuuray inaad noqotid qof maaragtay isku filan oo wax qabsan kara. laakiin haddaad noqotid qof aan waxba qabsan karin, aan isku filnayn, dhibaato weyn ayaa maaragtay la kulmaysaa. dabcan barnaamijkan waa taxane, waxaana qeybaha kale uga hadli doonaa mawaadiic ku xiisa gelin doonta. waxaan kaa codsanaynaa inaad sii faafisid. waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe ama follow noogu noqotid si aan noo dhiirigelisid. hadday jiraan mawaadiic iyo wax aad haysidna waad nala wadaagi kartaa. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.